عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إيوه حرن وما سنتين وإذن سلامة يا مركو هري مركا لما وحان ربا كلب كان إنان أوغا هادلو إن سؤال بدن oo laga soo weydiin dhinaca dhaqaalaha ama maalgashiga ama investorka wax la yiraahdo xagee baan maalgashi aad ka hadashay waxaan rabnaa inaan investor aan sameeyno xageen maalgashanaa waxaan rabaa inaan idin sheego horta dadka isku mid ma aha dadka qof walba waxba ku fiican yahay inta aadan maalgashi bilaabin inta aadan ganacsi bilaabin inta aadan juhdi iyo shaqo meel qaldan aad gelisa aadan bilaabin waxa muhiim ah inaad heshid the right place the right time on the right state inaad samaysid taasoo micnaheeda ah waxa aad rabtid inaad qabatid ama maalgashiga aad ku samaynaysid marka hore waa inaad heshaa waxaad adiga ku fiican tahay ee aad jeceshahay markaad qabanaysid sababta oo leeyahay maxay tahay maanta xilli waxa lagu jiraa casri ah oo aad helaysa xirfado aad u fara badan oo intooda badan aad sameyn kartid adoo gurigaada jooga ama digital aad ku sameyn kartid ama mobilkaada gacanta aad ku sameyn kartid ayaad helaysaa laakiin haddii waxaanay aadan adiga jecleen muuhiba aad u lahayn passion wax la aadan u lahayn berri waad ka niyajibaysaa waad iska daynaysaa laakiin waxaad jeceshahay ee muuhibada aad u leedahay ee marka aad sameynaysid aad ku faraxsan tahay marka aad sameynaysid aad ku qanacsan tahay marka aad sameynaysid fan ay ku tahay haddii aad bilowdid weliga kama daalaysid dadka markay daalaan dadka markay niyad jabaan dadka marka ay leeyihiin ma sameyn karna adiga waxay ku tahay fan farxad ay ku tahay waa sameyn oo si laba jibaarisa soo darteed waxaad raadisaa adiga maxaad ku fiican tahay inaad qabatid waxa aad maalgashanaysid ee aad businesskaada ka dhiganaysid ee aad ka dhiganaysid waxa aad telefoonkaada dukaanka telefoonkaada uga shaqaysanaysid ka dhiganaysid ma jeceshahay ma tahay si waxaad ku fiican tahay haddii haa ay tahay sidoo kale waxaad fiirisaa meelo badan ka fiiri kambanigan ama ganacsiga aad la bilaabaysid ama kambanigan aad rabtid inaad adiga maalgashatid waxyaalaha uu iibiyo ama waxyaalaha product uu soo saaro ma yihiin wax dadka ay u baahan yihiin baahida dadka wax lagu daboolay ma tahay xilliga maanta casriga ay lagu jiro ee dadka ay jecel yihiin ma tahay tusaale kale waxa kamid ah platformyada lacagaha cryptocurrency-ga sida lacagaha bitcoin oo kale markaad maalgashi sameynaysid waa wax casri ah waa wax dadka jecel yihiin waa wax tar leh waa wax adduunka meesha u socda ah sidoo kale haddii aad rabtid waxyaalaha aad maalgashanaysid sida waxyaalaha caafimaad ku saabsan productyada noocyada caafimaad ku saabsan nutritionka ha noqdo ama fitamiinada ha noqdaan ama waxyaalaha caafimaadka bini'aadam ku saabsan mar walba waa loo baahan why because bini'aadamka waxay u baahan yihiin ay ku yihiin maxay ahaday depending on ay ku yihiin waxyaalaha naftooda waxtarka u leh waxa jirkaada qurux u sameynaya wax caafimaadkaada kobcinaya waxa dhiigaada kobcinaya waxa lafahaada kobcinaya iyo wixii lamid ah waxa xiga sidoo kale cuntooyinka waa ganacsiga ama investorka la gala ganacsiyada ugu fiican weeyaan why because dadku waxay rabaan waxay cunaan dadku cuntay jecel yihiin markay dadka gaajo qabato waxay dareemaan waxa la yiraahdo emotionkaas markay dareemaana waxa la xayisiyo ugu fiican ee qofka u raadiyo waa cunto marka waxa aad ka shaqeynaysaa haday cuntooyin yihiin cunto waliba basically xalaal ah inay tahay inaad raadisid oo aad maalgashatid waa perfect waxyaalaha la maalgashada ama ganacsiga laga bilaabo waxyaalaha ugu fiican waa gaar ahaan cuntooyinka markay noqoto waxyaalaha aad maalgashanayso waa inay noqdaan waxyaalaha naturalka ah sida dhirta kale waxyaalaha dhirta laga sameeyo miraha ha noqdaan waxyaalaha fruit la dhaha ama fruitska nooc doonaba ha noqdaan inay yihiin ayaa muhiim ah laakiin sidoo kale dhinaca teknolojiyada markay noqoto waxyaalaha electronic ah maanta aad ayaa loogu baahan yahay haddii aad maalgashanayso company waxyaalahan electronic iibiyo maalin kasta wax cusub oo casri ah dadka loogu soo diraa ee dadka jecel yihiin marka adigu ku fiican tahay then wixii ma yihiin waxa maanta wax tar leh ee dadka ay jecel yihiin ee dadka ay u badan yihiin ma yihiin haday tahay waad bilaabi kartaa investor waa noqon kartaa meel cidlaadna ka bilaabi kartaa ee hoose laakiin u fikir marka ugu horeyso oo waxaad raadsataa qof coach ah ee waxaas oo dhan ka caawin karo ku dhageysan karo kadibna ku hagi karo inaad raadsato waa muhiim soo darteed coach raadso ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaasho tasbiixdana ku dadaal waa guulaysanaysaa